ciidamada booliska ee 16 wadan ayaa xidhay 800 oo qof kadib markii boolisku ay dhexda ka qabteen malaayiin fariimo ah oo ay isu dirayeen kooxo abaabulan oo laga shakiyay inay ku lug leeyihiin dambiyo caalami ah. kooxahan ayaa la sheegay in lagu soo dabay oo lagu khiyaameeyay abis si qarsoodi ah ula socdaan ciidanka booliska ee FBI-du wadanka Mareykanka hay'adda u qaabilsan weeyaan arrimaha dambiyada ee waxayna sheegeen hawlgalkoodan ay kaga hortagayeen dilal badan oo la qorsheeyay iyo fal dambiyeedyo kale waxaana ay ku qabteen hawlgalkan ku dhawaad 50 milyan oo dollar. hawlgalkan oo ay si wada jir ah u qorsheeyeen booliska Australia ee hay'adda FBI ayaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa taariikhda ee abid dhaca. Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka waramaya. hawlgal ballaaran oo booliska Australia ay fulinayaan oo dhinac caalami ka ah waxay ahayd wada shaqayn 3 sano socotay oo ay isla wadeen booliska Australia iyo FBI-da Mareykanka. xaddiga hawlgalkan oo loogu magac daray Ironside waa mid ballaaran. waxaa ku lug lahaa in ka badan 4,000 oo booliska Australia oo kaliya. Today the Australian government as part of a global operation maanta dawladda Australia waxay soo qabqabteen koox ku hawlanaa dambiyo taasi oo qayb ka ah hawlgal caalami ah oo aan ahayn dalkan oo kaliya. talaabadani waxay arrin taariikhi ah u tahay hay'adaha sharci fulinta ee dalka Australia. in Australian law enforcement history. Mas'uuliyiinta ayaa sheegaya in 22 isku day dil ah la joojiyay iyo in rasaasayn baahsan oo dhici lahayd dad badanna lagu layn lahaa iyana la fashiliyay. boqolaal qoryo ah 3 tan oo maandooriye ah iyo 35 milyan oo dollar ayaa la qabtay. in ka badan 200 oo qofna waa la xiray. haddii lagu helo eedaysanayaasha dambiyada lagu soo oogay waxay mutaysan doonaan xabsiyo aad u dhaadheer halka dacwadaha qaarna ay wajihi doonaan xabsi daa'im. waxaa saldhig u ahaa hawlgalkan ab la adkeeyey amnigiisa oo lagu qiyaanay xubnaha ugu muhiimsan ee kooxahan dambiga ku hawlanaa. qof daroogada ku lug lahaa oo hoos ula shaqaynayay booliiska ayaa iyadoo aan la dareemin u qaybiyey abka oo loo yaqaan Anom qaar badan oo asxaabtiisa ah. booliiska ayaa markaa awood u helay inay si toosa u akhriyaan malaayiin fariimo oo la isku dirayay iyo iyadoo si cad shirqool dil ah loo maleegayay. bilowgiiba waynu la soconay dambiyadan abaabulan waxaanu qaadnay hawlgalkii ugu weynaa ee abid lagu qaado dambiilayaasha. baaritaanka ayaa sida la sheegay lagu helay xiriirka kooxo dambiilayaal ah oo ka ganacsada maandooriyaha koonfurta Ameerika, bariga dhexe iyo qaybo qaaradda Yurub ah. bal markaan aynu qodobada kale ku jira wararka caawa. booliska Canada ayaa nin ku soo oogay inuu dilay 4 qof oo Muslim ah oo isqoys ah kadib markii uu jiirsiyay gaari watay. boolisku waxay sheegayaan in hay'ad cadeyn ah inuu ninkaasi si ula kas ah oo ugu bareeray dilkan oo uu soo qorsheeyay iyadoo ay ka ahayd nacayb yahay dadkaasi Muslimka ah. nin kale oo isna lala xiriirinaya laga soo xiray suuq laga dukaamaysto oo 7 kiiloomitir u jiray goobta shilku ka dhacay. argagixisanimo ayaa laga yaabaa ninkaasi lagu soo eedeeyo.